السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جو مقعي ويا من أحمد يوسف كنا مقعدير من الشعيل وحنا هاي قابر هالأبورة كنا نول قبل كان تقدر ما حيه ما أنت وحنا شعلا يستور بهين تينا لو ذاقو إن الشعيل قاضي ما أن شعيل ونقوى حلبان برخد جامع بطون xildhibaanka goraha uu qoraa wakiilada ee Soomaaliland waxaan ku jeclaaday sida runtii maxay heetoy astaamihii aan ragga ku xulan lahaay oo dhan ayuu ninkaasi leeyahay maxay heeto horta markaa nin dheer qurux badan ma sha Allah oo waxaan ku leeyahay nimanka dheer oo dhan ka helayo jecelahay maxay heetoy marka labaad waxaan ku jeclaaday in hawlkarnimadiisa marka saddexaad aftahankiisa oo aan hadal ninka laga helin de marka jacaylkan qoom soo koobi karaan leeyahay maanta way aaminay adbad maasante xilma dareenka jacayl dhabta u qaaday barxad xildhibaanka golaha wakiilada Soomaaliland barxad jaamac batuun walaalow in barxad jaamac batuun waxaan jacaylka weyn u qaaday maalintuu dooda wada galeen kulmiye afayeenka xisbiga kulmiye maalinta dareenka jacayl dhabta u qaaday okay aaminay ma isku dayday muddada jacayl xildhibaan barxad batuun inaad xiriir kala duwan la sameeysid oo la hadashid ولا الفيسبوك maxay heetoy wax jawaaba iga muuso siinin maxay heetoy in wariyaasha ka hawlgalaan Hargeysa ayaa tabkiisa ii soo sheegay maxay heetoy wax alla wuxuu ii sabkaan aan jawaab oo maanta ka hayaa jiro de markaa waa sida aad bad maasantaabna maxaa halkan fariin oo marinaysa haddii xildhibaan barxad batuun ku daawanayo walaal waxaan walaalka kan marinaya maxay heetoy de horta jacaylku waa wax jira waa ka adduunkana ku soo dhaqan yahay kuna dhisan yahay maxay heetoy de waa ogtahay oo dad badan baa jacayl u dhintay de boodheer iyo malaade taariikhda way ku qoran yihiin de leeyla iyo qaysiyo maxay heetoy marka waxaan lahaday walaal waxaan ku leeyahay intaan xabaasha la qaadin de walaal bal la soo xidho ila soo hadalo ii soo jawaab walaal waxaan leeyahay in WhatsApp iyo Facebook gaba in badan baan kala hadlay ma fariin uga diray ama cod baa uga duubay marka waxaan leeyahay walaalo de duubay fariimaha haddaad maqlaysid ma yarkaysid de walaal ii soo jawaab ayaan ku leeyahay fariimaha ba iga soo jawaab walaal marka waxaan ku leeyahay Jamal Caafiyo waxaan ku leeyahay sawiraanta barxad batuun waa inta kaliya tayu helka habeenka ku seexdo subaxaan ku soo tooso saaka subax wax kale ma eego sawiradiisa sanadka la noolahay baa ku noolahay ba yaan wehelka aan ka dhigtaba marka waxaan leeyahay walaal jacaylka ay ku dhacay horta jacayl hore ima soo marin bargo jacaylku wax jira man mood jirin laakiin jacaylkiisa daraadi de walaal dhaawac buu ii geystay aan tirin karaynin waxaan ku leeyahay walaal inanka lama sheekaysan karo walaal nin kale lama hadli karo waxaan leeyahay walaal de beesh wixii warbaahinaya inta u gudbay intii aragtaba intii de isku dhow yihiin baan inanka la ila hadlo sida ugu dhaqsiya badan la war kale gaarsi hadduu ii soo jawaabi waayo amna hal abuurad baati ku nool gobolka Togdheer maanta ay sheegtana waxa jacayl dhab oo qabta xildhibaan barxad jaamac batuun oo ah xildhibaanka ugu codka badan golaha wakiilada Soomaaliland isku dayna jacaylkaaga dareen ahaan aad sugan ku cabirto aad iyo aad baan walaal taa ugu leeyahay de marka waxaan leeyahay xildhibaankii qaranka xilka weyn u hayo kalgacayl xadayba xiisa igu kaaladay meel ledin xalayto safrad baan xabeebtay حقان كاهلا حبيب جمال عافية وحن رجيني ولا si weyn u rajeynaya maxay tahay muuqaalkaygan inuu gaaro xildhibaan barxad jaamac batuun oo uu soo jawaabo taas u wanaagsan ee maanta oo ii noqon lahayd rajaa aad ban maasanta